waa tahay maanta waxaynu ka hadlaynaa shanta laadar ee ugu dhibka badnaa ee ka soo muuqday guud ahaan Bollywood oo dhan maadaama codsigani waad iga tira batay haddaba muuqaalkani maanta waa kan shanta waxaan ku xisi doonaa shantii laadar ee ugu dhibka badnaa ee ka soo muuqda Bollywood kama hadlayno laadarada dadka matala maalin walba waxaan ka hadlaynaa dowrka laadarnimo cidii ciyaartay shantii ugu dhibka badnayd balse intaan guda gal muuqaalka saaxiib waxaan ka rajeynayaa inaad nagu soo biirtid haddii aadan hore nagu soo biirin sidoo kalena sii share gelisid muuqaalkan mahadsanid kaalinta shanaad waxaa noogu jira laadarka ganja oo ka soo muuqday filimkii Agnibad 2012 Agnibad hore waxaa looga matalay 1990 laakiinse waxaanu ka hadlaynaa doorka ganja oo ciyaarayay Sanjay Dutt sidoo kalena uu kaga soo muuqday inuu ahaa dilaagii arxan laawaha ahaa filimkaas dad badan oo ka mid daawadeen ahaana mid ka mid ah filmadii ugu caajibsanaa xilligiisa kaalinta afraad waxaa noogu jira laadarka la magac baxay Gogol Bandit ama loo yaqaano Nagalay kana soo muuqday filimkii la magac baxay Dushman oo ahaa sanadii 1998 filimkan ee dadka daawaday waxay aad u necbaysteen laadarkan sidoo kalena ahaa laadar aad u dhib badan filimada badan oo ka soo muuqdana ah mid aad ugu tacadiya dumarka ama aad ugu falan kufsiga dumarka kaalin saddexaad waxaa noogu jira laadarka Kabil iyo filimka Chani Dushman Soomaalida waxay u taqaanaa sagaalka atooraya maska filin run ahaantii gudaha Soomaalida sumcad aad u tiro badan ku leh aadna looga xiiseynayay xilligiisa agtara aad u tiro badan iyo wajiga dadku ay jecel yihiinna ay ka soo wada muuqdeen sidoo kale ahaa filin xilligiisii la yimi wacdar cajiib ah shakhsiyadda Kabil oo Armaan Kohli noo matalay oo ahayd shakhsiyad aad u dhib badan markii laga hadlayo gudaha filimkaas oo ahayd shakhsiyad aan si nabad looga baxsan karayn oo ku soo bandhigay wacdar cajiib ah gudaha filimkaas ayaa noqday laadarkii saddexaad ee ugu dhibka badnaa abid kaalinta labaad waxaa noogu jira laadarka la magac baxay Mogambo iyo filimka Master India haddii aan khaldanayn filimka Master India waxa uu ahaa sanadii 1987 ama 88 Anil Kapoor iyo ruuxaanta qofka aan la arkin ee dhuunta iyo Srideviya filin aad u qurux badan iyo Mogambo oo ahaa laadar aad u dhib badan oo doorkaasi noo ciyaaraya Amrish Puri oo Soomaalida geyigeeda loogu kala yaqaano magacyo aad u tiro badan waxaan rajaynayaa mid ka mid ah magacyada Amrish Puri loogu yaqaano geyigaaga inaad commentiga nagula wadaagtid kaalinta ugu dambaysa ama kaalinta koowaad waxaa noogu jira laadarka la magac baxay Gabbar Singh iyo filimka Shole ay ka soo wada muuqdeen Dharamandar iyo sidoo kale Amitabh Bachchan oo ka mid ah aktaradii xilliyadooda ugu shacbiyada badnaa abid ee soo mara Bollywood sidoo kalena ahaa laba aktar oo filimka kulansaday in ay soo qabtaan laadarka weyn ee Gabbar Singh oo ahaa nin aad u dhib badan Gabbar Singh inoo matalayay doorkaas Amjad Khan oo ahaa mid ka mid ah isaguna raggii xilliga saameynta ku lahaa Bollywood gudahooda filimka Shole iyo Gabbar Singh ayaa ah kaalinta ugu horeysa abid filin ka soo muuqda Bollywood oo dhan haddaba adigu shantan laadar iyo shantan filin imisa ayaa daawatay keesa ugu neceb tahay commentiga nagula wadaag sidoo kale ha ilaawin muuqaalkan si share gelisid oo gaarsiisid asxaabtaada mahadsanid